waxaa loo isticmaali jiray un dagaalka raaya la odhan jiray had iyo jeeraale dagaalka marka la gelayo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay qaadan jireen waxaanu calaamad u ahaan jiray halka uu joogo hogaamiyihii iyo dagaalgeliyihii ciidankaasi watay si ay ugu yimaadaan haddii calankaasi markaa dhulka uu dhaco oo dee hogaamiyihii la dilo arrinta noocaasi waxay calaamad u ahaan jirtay ciidankaasi in la jebiyey saa awgeed calanku inuu dhulka u dhaco aad baa looga ilaalin jiray maaha in marada la ixtiraamayay oo sideeda loo weyneynayay laakiin waxa ka dhalanaya awgeed ayaa inuu dhulka u dhaco waxa weeyaan laga ilaalin jiray sidii dagaalkii tabuuk oo kale ka dhacday ghaswatu mu'ta baan ujeedaa saddexdii saxaabiye calanka qaaday u kala dambeeyey mid walba la dilay calankaasi dhulka inaanu u dhicinna aad bay ugu dadaalayeen laakiin marka lasoo noqdo ee magaalada la yimaado iyo dhulkii ay deganaayeen calan meel la suri jiro la odhan jiray waa calankii dowladda ma jiro dadka muslimiinta ahayna waajibku waxa weeye inay dowlad qura yeeshaan dhammaantoodba sidii dee waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafada ay ahaayeen laakiin haddii hadda ay muslimiintu dowlada kala noqdeen la odhan maayo waxaan waxba kama jiraan oo waxba laga soo qaadi maayo axkaam loo yeeli maayo oo dowlad kaste madaxweynaha muslimka ee ka taliya wanaagga lagu adeeci maayo la odhan maayo dowlad kasta oo muslimo maanta dhulka dusheeda ka jirta waxay leedahay xukunkii uu lahaa ninka amiirka ah ee muslimka ah ee muslimiinta u taliya oo ah in wanaagga lagu adeeco wixii xumaanana in waxa weeyaan looga nasteexeeyo marka waddan waliba waa yeelan karaa calan astaan u ah oo lagu garto oo la yidhaahdo waa calankii waddankaasi waddan hebel la yidhaahdo qadiyadda ku saabsan calanka in loo istaago istaagga noocaasiya haddii qasdiga iyo ujeeddada laga leeyahay iyo niyada lagu istaagaya ay tahay in la weyneeyo maradaas weyneyntaasoo ay la socoto khuduuc loo khuduucayo iyo dullow loo dulloobayo qasdigu hadduu kaa yahay iyo niyadu arrinta noocaasi ma banaana qof walibana qasdigiisa iyo niyadiisa isaga ayaa og waxaana arrinta noocaasi gaari kartaa xaddu shirki bay gaari kartaa ilaa xuduudda shirkiga arrin qofka tawxiidkiisa iyo iimaankiisa wax yeesha waayo istaagga noocaasa qiyaamka noocaasa qasdiga loo istaagaya uu yahay weyneyn ay la socoto khuduuc iyo tadallul isdullayn ilaahay baa subxana watacaala la gaara waa cibaado وكي لا يدعو قوموا لله قانتين إلهي وكي يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى وكورمي ملائكته وملك جبريل وكمدي هاي إن إلهي سبحانه وتعالى يسوت هاجيان تعظيما وخضوعا وتذللا له وينين أوجد خضوع إلهي وخضوع عيان وخشوع عيان يسد الليل مركا كانوا عاسي سقوا عباده وما بنانا علن يقف من نبأ إن الله السماء ما بنانا haddii aan qasdiga noocaasa aan looga jeedin sifada noocaasa aan wadan qofku uu leeyahay anigu maradan dee waaba mara oo anaaba qof bani aadama muslimo ka sarreeya waxba u khuduuci maayo isuna dullayn maayo ee ujeeddadu waxa weeyaanuun inaan muujiyo uun inaan ka mid ahay calankaasi waddanka uu astaanta u yahay dadkiisa masalada noocaasa xukunkeeda culimmadu way isku khilaafeen culimmada qaarkood way diideen in badan oo culimmada casriga nool ka mid ah masaladu waa masalo casrigan uun waxa weeyaan soo darisay waxaana diidmada noocaasiya ku sameeyeen waxay idhahdeen arrinkani waa arrin dadka muslimiinta kaga yimi xagga gaalada markaa gaalaysu ekaysiin ayaa ku jirta rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum waxa kale u diideen waxay yidhaahdeen dee weyneyn baa ku jirta oo qaarkood dee waxaabay leeyihiin mar walba weyneyn baa looga jeedaa oo qofkani dee ciyaar isagama istaagayo oo sababta uu u foorarsanayo ama uu gacmaha meelaha qaarkood u saarayo dee waa khushuuc iyo khuduuc iyo isu dullayn uu isu dullaynaya bay yidhaahdeen iyagu xukunka halkaasay mariyeen culimada qaarkood oo casriga nool oo dee majaamicda fiqiga qaarkood ay ka mid yihiin iyo hay-aadka fatwada waxay yidhaahdeen istaagga makhluuq laysu taagaa mar walba cibaado maaha marka haddii looga jeedo uun salaan uun looga jeedo iyo muujin qofkani uu muujinayo waxa weeyaan inuu calankaa dadkiisa uu ka mid yahay intaasoo qura haddii ay tahay wax dhibaati kuma jirta bay yidhahdeen arrinta tashabuhana waxay yidhaahdeen gaalaysu ekaysiinta shaygani hadda wax gaalada ku gaara maaha hadduu marka hore xataa xaggooda kasoo bilaabmay wuxuu noqday wax faafay oo dee gaal iyo islaamba ka dhexeeya sida dharkaa dee maanta la wada xidhanayo ee gaaladuna ay xidhaan
muslimiintuna ay xidhaan lagana yaabo asal ahaan inuu ka yimi waxa weeyaan xagga gaalada. marka arrintu sidaad arkaysaan arrin fudud maaha, maadaama markaa aanay waajib ahayn in laysu taago maradaas, sunnana aanay ahayn oo shareecadeennu wax ina fartay arrinta noocaasi aanay ahayn. waxa u badana xataa cidda dooda ka keenaysa waxay ku sifayn karaan ay tahay inuu yahay wax mubaaxa uun bannaan oo qofku ajarna aanu ka helahayn aanu kuna dembaabahayn. khilaafka noocaasina uu ka taagan yahay, dadkuna qasdigii iyo sababta loogu istaagayo aanay aada u kala garanahayn oo qaarkood dee weyneyn iyo ukhuduucitaan iyo in loo foorarsado waxa weeyaan marada noocaasi ay isugu taagayaan waa in layska daayo weeyaan. dee waxyaabo kale hadday raacaanna sida iminka dhacda muusig baa waxa weeyaan ayaa la raaciyaa iyo waxyaabo kale. dee muusiguna sidiisa ayaanu u bannaanaynba haddii calan laysu taagayo loo garaaco iyo haddii wax kale loo garaacaba. marka iminka kolley istaagan calanka loo istaagayaa sidan hadda uu yahay marnaba kuma bannaana. xukunkiisa asalkaana sida aan sheegay ayuu u kala qaadmayaa, mid ay culimmadu isku waafaqsan yihiin inaanu bannaanayn bal shirki gaadhaya oo qofka tawxiidkiisa iyo iimaankiisa khalkhal gelinaya, iyo mid ay culimmadu ay isku khilaafeen. waracuna wuxuu keensanaya xataa ka ay culimmadu isku khilaafeen qofku inuu iska daayo. waayo rasuulku wuxu uhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka, wixii aad ka shakido xalaalnimadiisa iskaga tag, waxaa xalaalnimadiisa aanu shaki ku jirin oo fara badanna waxa weeyaan u tag. ilaahay baa subxana watacaala weyneyn inaga mudan. dad laga yaabo ilaahay subxana watacaala inaanay weyneyn oo inay isu taagin oo aanay salaadba tukan ayaa maradaa yar isu taagaya oo weyneynaya. weyneyn nabigeeni maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inaga mudan. in istaag lagu weyneeyena rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa karaahiyeysan jirayba, say saxaabadu yidhaahdeen umaanaan istaagi jirin bay yidhaahdeen, waayo arrintaa inuu dhibsanayo karaahiyeysanayo ayaanu arki jirnay. qofka bani aadamkaa ee kuu yimaada haddii uu isagii taagan yahay, aduna markaad salaamayso waad istaagi kartaa, wax dhiba ma laha. oo axaadiistana taasi way ku soo aroortay. kaana nabiyu yaquumu ilaa faatima wataquumu ilayhi. sacad ibnu mucaad oo kale isagoo dhaawaca markii la keenay rasuulku wuxuu uhi quumuu ilaa sayidikum ayuu yidhi. xadiidka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi man axaba an yatamathala lahu rijaal bilqiyaam falyatabawa maqcadahu min annaar, qofka jeclaada raggu inay isu taagaan meesha uu naarta ku leeyahay u diyaar garoobo. wuxuu ku saabsan yahay nin isagoo fadhiya jecel in la dul istaago, ta noocaas iyadu ma banaana, isaga inuu fadhiyo la dul istaago. xataa nebigu calayhi salatu wasalaam salaada markuu fadhi ku bilaabay, fadhi uu ku tukanayey ee saxaabadu ay istaageen, arrinta noocaasa uu ka diiday. qofkii oo fadhiya in lagu ixtiraamo ama lagu weyneeyo inay dadku isaga dul taagnaadaan, arrinta noocaasi ma banaana. laakiin qofkii kuu yimi isagoo soconaya kuu yimi markaad salaamaysa ama aad soo dhaweynayso isagiina uu taagan yahay, taasi waa loo istaagi karaa, wax dhiba ma laha. wallahu aclam. sala allahu cala nabiyina maxamed.